السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waa maalin aad iyo aad u faraxsan hooyadii Soomaaliyeed Faatimo Buraanbur ayaa TV maxaa la dhahay video kale cusub soo saartay oo iyadoo aad iyo aad u faraxsan tahay farxadaasna waa wax idinka ka dambeeysan waa wax idinka garab ku siiyay waa ummadda Soomaaliyeed wax ay sameysay aadeen u mahadsan yihiin run ahaantii haddii hooyo Soomaaliyeed ay faraxdo ay qosojo anagana waa farxadeen waa qosolkeen laakiin hooyo Soomaaliyeed haddii murugooto ay ooyso waa anagana dhibaatadeena ma fahantay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta video cusub ay soo duubtay waxay ka hadlaysaa maadaama ciyaalkeeda dhan laga wada haysto ma ahan kaliya wiilka Salmaan ciyaalkeeda dhan waa laga wada haystaa marka maanta midda ay la faraxsan tahay waxay tahay laba cunug oo ciyaalka ka mid ah waa kuwa ugu yaryar 8 ayaa la yiraahdaa marka waa labada ugu yaraan u maleynaya inta kale waa loo diiday mas telefoonka adiga afkeedan ka maqli doona insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo marka labadana balan loogu soo tuuray balantaas ay u socotaa marka insha Allah taala wixii say wax u jiraan bal hooyadan Soomaaliyeed afkeeda aan ka wada maqalno insha Allah taala ilaahu caafimaad nasi ilaahu iimaan saadaqa ilaahu qalbi deganaansho ku jiro waa in salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka dacalaheeda ka joogtaan waa anigii oo in leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan haysanaa 15 daqiiqo bacdi balantiyaa geli doonaa insha Allah ma haysano waqti badan oo in la sheekaysto 10 daqiiqo raba marka inaan la sheekaysto oo aan ii sheego nimcada Ilaahay noo hirgeliyay telefoon 2 bilood ku dhow nagala qaban waayo waa jiranahay iyo waqti ma hayna in la dhihi jiray oo hadalka noola diiday ayaa nagala qabtay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin waxaan codsanay inaan is aragno balan degdega ilmo yaryaraayo 5 ah naagii haystay 9 sudaysi ayaa codsanay labada kale afcadaab la iigu diiday naagahooda telefoon iska daayay xatii waxaa la igu dhahay mana soo wici kartid mar hore marka labada yararka oo ilmaha yararka oo waalidka aan ka maarmin oo 9 sudaysi ka warqabtiin naagahaas marna naga qabtay wala waa dhibaato aad iyo aad u weyn ciyaalkaaga adiga dhalay oo 9 bilood iyo wax aloos ku soo waday oo ku barbaasay islaheed ku naso farxadda la qaybso oo haddana ciyaalkaaga oo xoog lagu la haysto lagu diidayo oo aadan waxna dhihi karin wallahi billahi waa xanuun aad iyo aad u xanuun badan dadkii ciyaal dhalay xanuunkaas dareemi karo aniga ciyaal waan leeyahay hooyadan waxay ka hadlayseen aad iyo aad ay taabanayeen run ahaantii ciyaalkaaga adiga dhalay ha lagu lahaado wallahi billahi ilaahay waxaan ka tuugeynaa rabbi oo raxmaan wadankeena noo hagaaji bal hooyo fudshat marna aan naga qaban oo danaheena naga lahayn marka Ilaahay baa insha Allah wax walba furdaamin doono oo fudayn doono waxaan hadalka u boobsiinayaa inaysan waqtiga ugu dhamaanin oo maadaama aan taaganahay meeshii iska si tago aadaan inii jecelahay sidaa noola kurbootiin waa iniga abaalheena sidaa noola socotiina sidoo kale waa iniga abaalheena soo marka ani ahaan ka Faadimo ahaan ama ka waalid ahaan waxaan jeclaystay inaan dhaho shukran inta ii soo duceysay caruurtayda horta awalan kurbada adika habeenada la seexan weyseen anaga baa la seexan waay waxa kamida qof walba oo ama shaqan oo haya ama waalida ama nagu wardarsado oo arimaheena shaqada ku jiro wuxuu leeyahay kuwaan waaweyn oo dayacan oo arkayno oo maqlayno Sheekh Xuseen waa aragteen hadalkiisi oo aan maqlayno oo arkayno oo dayacoodii dhageeni ka buuxiyay oo anaka marqaati kana oo anaka kula shaqeyno waaba maqalnaa ee kuwi kale inay dhinteen inay nool yihiin waa in aan dadkan aan ina ka walwalsanahay tusno waa in aan weerar ku qaadno oo aan dhahno waalidanahay ma waalidnimada noo diidantiin hadaa xatii dambiilo naga dhigteen okay alxamdulillah mala nasanin mala faraysanin telefoon dirsasho haba gurmad haba orod alla barigina wax badan ayuu noo qabtay ogowna ducada markaa walwalsan tahay wallahi waa la helaa Salmaan aada ugu walwalsanaa alxamdulillah shukr rabbil caalamiin ilaahayna inuu nagiyo oo waxaan maadaama loo kacay waxaan barayaa rabbiga raxmaanka in muslim iyo gaalba ay caawiyaan
oo ilaahay ummadiisa uu soo qasbo marka kuwaan shantan labadii waaweyneed iimaan maba ku jirto labadii waaweyneed aa aragnaa ooyaya dayacan hadlaaya mar la dhibaataynayo guriga hadday tahay ilmo guriga la jooga hadday tahay waalidka guriga loo geeyey marka waxaa muhiimadii nagu qasbay in aan hadalno caruurteena aan tusno inaan ka walwalsanahay waa anaga waalidaanahay xaq ayaa u leenahay inaan walwalno hooyadan Soomaaliyeed waa aragteen dhibaato aad iyo aad u weyn ka muuqato oo waa dhibaato aan wada dareemi karno waa hooyo wax dhashay ciyaalkeeda ay ka maqan yihiin marka ilaahay waxaan ka tuugeynaa hooyadan inay ciyaalkeeda dib ay u hesho insha Allahu tacaala waayo arintan iyada kaliya kuma ankaa karto anagoo dhan waan wada saameey doonta insha Allahu tacaala qof walbo muslim ah uma rajaynayo tan oo kale marka faatixada aan wada aqrino si ciyaalkeeda u soo hesho insha Allahu tacaala leegana saar sharkana si saar commentina ka bixi insha Allahu tacaala anigu ma dhahayo waxaan inaan wax ku helo hooyadan Soomaaliyeed waayo anaga dhan ciyaal waa wada leenahay xanuunku waa dareemi karnaa marka ummad Soomaaliyeed si u wada gaarto oo ducada ugu kaalmayso insha Allahu tacaala si gudbiya insha Allah khayr idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala